annagu waanu beenaynaynaa inamada iyada laascaanood joogay askartaana waxaanu ku amraynaa inay laascaanood ka baxaan oo aanay qof dambe dilin amarkiisana aanay qaadan waana ka shaqaynaynaa arrinkaa idina aftiyaal luuqadda aaleediin isaaqiyeesana bedela waa inta muuse bixi doonayo waa inta dictatorku doonayo waa intuu doonayo inuu ka faa'iidaysto taas intaa weeye qodobka kale muuse bixi dagaalka kan wuxuu u bilaabay maantii hore uu ka bilaabay hargeysa iyo burco iyo ceerigaabo dadkan salmiga ku mudaharaadaya wuxuu diidanaa doorasho maantana dagaalka kan wuxuu bilaabay dadka kan salmiga ee mudaharaadaya dhibaatada ku dhacday ka mudaharaadayay ee dowladda u caabanayay yaa dowladda ka soo horjeeday maxaana lagu dilayaa maxay dowladdan u qaban weyday wuxuu ku laayay diiwaangelintii wuxuu arkay sool iyo sanaag inaanu xisbigiisa isagu toonna cod ka helayn siduu u baabi'iyo dad shacaba oo maskaxda laga wada tooganayo oo madaxa laga wada tooganayo oo la dilayo iyo isagoo doonaya beelaha isaaq inay kursigiisa difaacaan oo beelaha arti la dagaalamaan arrinka haddaan waayeelkiin lahay kulama raacsanin hal madax dhaqameed oo kula socdaa ma jiro hal siyaasi oo kula socdaa ma jiro way ka hadli doonaan xisbiyada qaranku way ka hadli doonaan mucaaradku way cid waliba way ka hadli doontaa anaa ugu horreeya waxaan leenahay annagu haddaanu maanta ciidamada somalilan ee ku jira laascaanoodna waxaan leenahay in arrinka laydiin diray kaa ma ahayn inaad shacbi laysaan oo nin kursi wuxuu ku doonaya ku laysaan ma ahayn dhaqankii laydinka bartay waa leexisina iskaga baxa laascaanood baan leenahay waxaan kale oo leeyahay maadaama ururadii soo baxee dambe iyo xisbiyadii jirayba maanta uu diiwaangelintii gacantiisa ku burburiyey oo dhulbaantoo dhani hub ka qaatay oo isagu kiciyey war maanta waxay somalilan ku badbaadin karaa midnimada jaarka iyo ehelka iyo dadka iyo dhiigga baxayaan ku badbaadin karaa muuse bixiyo kursiga laga rido anu waxaan leeyahay kacdoonka hala raaco kacdoonka hala taageero maanta yaan xaabo muuse bixi kursigiisa ilaalinaysa laynoo isticmaalin mucaaradkana waxaan leeyahay xisbiyada waxba idinama soo jeedaane ninka kan gees inaynu uga soo wada jeesano raggayga dhaqankaa hogaaminaya arrinka dadka shacabka ee walaalahana colaad muuse ma isu gelin karayo waanu ka dagaalamaynaa arrinka boqor cismaan waayo arag dhaqan baad tahay in badan baad xiisadahan oo kale u soo taagnayd ma kula tahay in xalka laascaanood uu ku jiro in somalilan iskaga baxdo magaaladaas war ninkeena waxa weeye eeg mushkiladdu waxa weeye halka somalilan oo dhani wuxuu ku jiraa iyo intii la isku odhan jiray iyo intii deegaankii ehelka lahayd muuse bixiyo iska dega kursiga may dhacayn shalayto khilaaf wuu jiray daahir riyaalaa joogay in cigaal baa joogay waxaa joogay axmed siilaayaa joogay nabadeyn iyo heshiis iyo ssc hadal lala furay ahayd dadka xabad oo aan cidna lala hadlayno juuq loo odhayn madaxa lagaga garaaco ma ay jirin hogaamiyaha xumina wuxuu keenaa burbur buu keenaa shacabkiisa iyo dadka odayaasha u ahina hadday ka aamusaan burburkaasi meel walba wuu gaaraya anugu waxaan rabaa halku muuse bixiyo kursiga laga rido iyo hal ku jira isagoo degay ku jirta wax kale kuma jirto waayo horaanu sheegay annagu snm waxaan maqlayaa abtiyadooda snm baa nagu soo uduushay horaanu sheegay snm maalintii dalka ay soo gashay ugu xool badnayd muuse biixi taladaa maanta uu wado waa tuu boorama ku tuuray waa tuu dilaac xasuuqa kaga geystay waa tuu boorama kaga geystay mujaahidiintii kale maxamed kainkaa daakhili ugu jiro iyo axmed mire iyo raggii kaloo dhan inta laysu yimi kale wax lagu gaadhay wax la wixii reer bari ahaa ehelkeenna aan la heshiino aan gobol dhigno iyo inaan dagaal ku qaadin maantana annaga oo marayna 2003 in loo yeedhiyo in colaad gacantayada muuse bixi caqligiisa aanu ku gallo caqliga iyagu caayaya ummadayadu caayaya ummadayada nabad baanu hayna shacbigana waxaan leeyahay caadifad yar oo liidata oo nin kursi raba oo haddii allaba leeyahay isaaq isku wadi kari waayey cid kalena isku wadi waayey laascaanood halkeeda waa inuu ka baxaa dadkan taladooda waa inuu daayaa sida aan horagoo leeyahay dabeedna haddii muuse xasidka ka baxo waxba isla waayi mayno talaanu isugu weynaa wada fadhiisanaynaa waxbaanu wada xaliilanaynaa abtiyaday waaye anigaa ugu horraynayo inaan gobasha horraysa dhiga anaa dhigaya ee nabadgelyada waxa weeyaan talada aan madax dhaqameedka
beelaha dhulbahante u soo jeedinayaa iyo odayaashina waxa weeyaan dagaal muuse biixi cidi ku weeliso iyo tiradiisa meesha kama socdo waanu idin barbar taagannahay idinla talaanu nahay waxaan leenahay kacdoonku yaanu isu bedelin mid beeluhu isku gubtaan oo isku ololaan oo la reereeyo waxaan kaloo u soo jeedin lahaa walaalkay garaad jaamac garaad ismaaciil iyo ninkaanu walaalaan nahay ee mahad cambaashe iyo qolyaha laascaanood jooga waxa weeyaan taariikhdu way isqori doontaa taariikh xun ha ku dhimanina maanta mar haddaanu uu garaadkii qulahaa ee somalilan kala joogay garaadada dhulbahante aanu ixtiraam